bishii Luulyo ee 2024 madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad iyo in booqasho uu ku yimaado Turkiga inkasta oo dib u soo celinta xiriirka Turkiga iyo Syria aysan si fudud oo dhaqso ah ku iman doonin haddana dadaalka Erdogan ee ku aadan iyo dib soo dhaweynta iyo dib u heshiisiintani waa mid la yaab leh marka laga eego sida 10 sano ka hor inuu xilka ka tuuro Bashar al-Assad natiijaduna ay u horseedo xilli oo bariga dhexe Erdogan siyaasadda gudaha ee Turkiga gugii Carabta iyo wixii ka dambeeyay gaar ahaan dagaaladii Syria waxa ay Turkiga 10 sano ee la soo dhaafay ku noqdeen masiibooyin waaweyn Erdogan iyo kooxdiisu waxa ay rabeen in ay gobolka ka hirgeliyaan kacaan ay maleynayeen inay hadafkooda ku gaari doonaan taageerida muslimiinta mandaqada bariga dhexe ee la dulmiyay iyo kuwa dhibaataysan tanina sumcad mandiqadeed oo ilaa iyo maanta baaqi ah ayuu Turkigu ka samaystay dunida islaamka hadafka xiga waxa uu ahaa inay ka adkaadaan mucaaradkooda gudaha Turkiga bilowgii hore kacaankii dibadda waa uu fashilmay laakiin Erdogan wuxuu ku guuleystay inuu gudaha nidaam lagu sheego keligii talis iyada oo gudaha Turkiga ay ka dhex jireen mawjado rabshado iyo qalalaase siyaasadeed ah oo aad u daran ayuu Erdogan guulo ka xaq Mareykanka sidii caadada u ahayd waxa uu taageeray gugii Carabta Turkiga boqorada Carabtana maalmo walwal iyo walbahaar ayuu gugii Carabta ku ahaa islaamiga ahaa ee Ciraaq iyo Shaam daacishna loo soo gaabiyay Mareykanku wuxuu iskaashi xoogan la yeeshay Kurdiyiintii waqooyiga Syria si ay ula dagaalamaan Turkiga intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2017 waxa ay ahayd sanadihii ugu adkaa ee uu soo maro dhinaca rabshadaha ayaa hareeyay gobolkiisii bishii Maaj 2013 waxa dalka Turkiga ka qarxay dibadbaxyo ka dhashay mashruuc horumarineed oo beer bartamaha magaalada Istanbul ayaa dibadbaxyo ay ka qarxeen dadka shacabka ah ayaa si daran uga hor yimiday mashruuca xukuumadda magaalooyin badan ayaana dibadbaxyadani kacdoonkii Gazi Party Erdogan waxa uu bilaabay la dagaalanka dibadbaxyaasha xilliga Turkigu waxa uu soo xirxiray dad badan oo u dhaqdhaqaaqaya ururada bulshada rayidka ah iyo suxufiyiin badan waxa uu Turkigu ka hortagay warbaahinta oo dhan dhacdooyinkani dibadbaxa laga soo tabinayay fadlan haddii aad ka heshay bartayadan ku soo biir YouTube ko subscribe soo dhig